barnaamijka hayaan ee jaamacadda Camuud 7 dhacdo iyo 7 horumar oo ay jaamacaddu gaadhay intii ay jirtay. barnaamijkani waxa uu diiradda saaraya safarkii dheeraa ee jaamacadda Camuud iyadoo loo marayo 7 dhacdo oo xasuus leh iyo horumarka la gaadhay tan iyo markii la aasaasay. qaybta labaad ismaha boardka jaamacadda iyo diyaar garowgii xafladda furitaanka jaamacadda. markii uu dhamaaday sanadkii hore barnaamijka luqadda Ingiriiska waxa si rasmi ah loo bilaabay diyaar garowgii xafladda furitaanka jaamacadda Camuud. tallaabadii ugu horeysay waxay ahayd abaabulka kulan ballaaran oo iskugu yimaadeen odayaasha dhaqanka, waxgaradka iyo hormuudka bulshada magaalada Boorama. kulankaasi muhiimka ah waxaa lagu go'aaminayay in la dhiso boardkii hogaamin lahaa jaamacadda cusub, boardkan oo leh aragti, sumcad iyo kalsooni. iyadoo laga duulayo duruufihii jiray iyo baahida loo qabay hoggaan kalsooni leh waxaa si isafgarada loogu doortay boardka jaamacadda oo ka kooban 3 oday oo magac iyo maamuus ku leh bulshada gobolada galbeedka. waxayna kala ahaayeen Allah u naxariistee Xaaji Jaamac Maxamed gudoomiyaha boardka, Xaaji Daahir oo cilmi ducaale gudoomiye ku-xigeenka, Xaaji Axmed Miisaan Aare gudoomiye ku-xigeen, haatan ah gudoomiyaha boardka jaamacadda Camuud. taariikhdu markay ahayd 22 bishii January 1998 boardka la doortay waxa uu si rasmi ah u dhageystay warbixin muhiim ah oo uu jeedinayay Professor Saleebaan Axmed Guuleed, gudoomiyihii hore jaamacadda Camuud. warbixintaas waxa uu kaga hadlayay marxaladihii ay jaamacaddu soo martay iyo guulihii laga gaadhay muddadii sanadka ahayd ee ardaydu wax ku baranayeen dugsiga Sheekh Cali Jawhar. hadalka Professor Saleebaan waxa uu si toos ah u muujinayay qiimeynta gudaha ee hawlaha la qabtay isagoo sheegay 4 qodob oo muhiim ah kuwaas oo ahaa tiirarkii horumarinta jaamacadda. qodobka koobaad wuxuu ahaa sanadkii ugu horeeyay ee ardaydu wax ku baranaysay dugsiga sare ee Sheekh Cali Jawhar, halkaas oo ay si fiican ugu soo dhameysteen imtixaankoodii, taasi oo ahayd guul weyn oo dhiirigelinaysa bulshada iyo maamulka jaamacadda. qodobka labaad in la sameeyo wacyigelin bulsho oo lagu wacyigelinayo furitaanka jaamacadda, taasi oo si weyn looga hirgelinayo gudaha Somaliland. qodobka saddexaad in iskaashi buuxa laga helo dawladda, gaar ahaan wasaaradda waxbarashada, madaxweyne ku-xigeenka, taasi oo keentay taageero rasmi ah oo la taaban karo iyadoo wasaaradda waxbarashadu ay aqoonsatay jaamacaddii ugu horeysay ay yeelanayso Somaliland. qodobka afraad in la bilaabo ololaha ururinta hantida iyo qalabka loogu talagalay xarunta jaamacadda iyadoo qaybtii ugu horeysay la helay. hadalka Professor Saleebaan wuxuu ahaa mid dhiirigelinayo xasuus mudan kuna salaysan bisayl, dadaal iyo wada shaqayn ay sameeyeen bulshada iyo odayaasha gobolku. iyo guduhu ay ka shireen in jaamacadda Camuud la hirgeliyo waxa odayaasha iyo deergaradka kala loo soo bandhigay. fikradii ka hore la dhigay ayaa sanadkan loo baahday in la socodsiiyo laftii oo ay dhamaatay marxaladii kolba la naaqashiyay la rogrogayo oo camal loo rogo waqti ugu furaya waatayna haddana go'aansanay halka dhulkaasi Cali Jawhar ku meel gaar bishii August 13 in aynu jaamacaddu waan furanay barata furay hadii la furay waa in haddana la socodsiiyaa waataynu inamadii kan ka qaadnay wixii tijaabo ah barnaamij tijaabo oo runtii jaamacadda dadka ma leeyahay laakiin bal pilot project oo qoray bishii October 4 ayaa waxay noo bilaabmay waxbarashadii waxbarashadii nimanoo bilowday taas oo furaysa taariikhda runtii oo hawlihii Somaliland guud ahaan hawlihii aan ku talagalay haddii aan imka dib isu qiimayno innagu guud ahaan markaan isu qiimayno iskuulkii wuu hirgalay aynu rabnay bilowgiisii tallaabadii horeysay baynu qaadnay wacyigelintii iyo faafintii sumcadda jaamacadda ee gudaha in wacyi dadka laga dhaadhiciyo, in baahida loo qabo la sameeyo, in loo huro wixii la samayn karo. kaana waynu bilowgeedii waynu samaynay oo halkan gobol ahaan iyo Somaliland ahaanba meel fiican ayay maraysaa. saddex waxaynu go'aansanay oo kale in xiriirkeena innaga iskaashiga dawladda aan la yeelanayno mid toosan oo la isla fahmayo labada dhinac kolba waxbarashada wasaaradda waxbarashada iyo jaamacadda inay noqdaan. waata hadee kaana waynu ku guulaysanay oo si fiican bay inoo tahay wasaaradda waxbarashada iyo ilaa heer qaran madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenba oo
sharciyeyntii jaamacadda heer qaran iyo heer gobol way sharciyeysay marka horeba kii heer qaran ahayd way soo dhammaystirantay oo waa ka diiwaangashannahay wasaaradda waxbarasho ahaan iyo siyaasi ahaanna waa la yidhaha aqoonsan yahay madaxda kalena waa kuwii taageerayna siiyey taasna iyadna jaarta xidmay bay noqotay afraad oo runtii ata hadda bilowgeeda waxay ahayd mar haddii iskuulkii furan yahay mar haddii dadkii wacyi ka dhaadhacay mar haddii ay somaliland oo dhan aqoonsan tahay taageeraysana jaamacaddii in meeshii jaamacadda la hagaajiyo hanti loo ururiyo taasina waa ta hadda ay hawsha u socoto runtii gubaabadeedana aynu talownay intii ugu horraysayna ay waxayna soo gaadheen waxaa loo baahan yahay marka waan ognahay inaanay baahideeni daboolaynin afartii arrimood ugu waaweynaan qabsanay saddexna waa dhammaadeen midna way bilaabatay waxaa kale oo aan la ilaawi karin laba mas-uul oo si weyn uga qayb qaatay diyaargarowga iyo wacyigelinta furitaanka jaamacadda allaha u naxariistay waxay kala ahaayeen maxamed xasan mataan iyo faarax shuun labadooduba waxay muujiyeen hogaamin muuqda hadallo iyo muuqaallo lagu xasuusto dhiirigelinta bulshada iyo midaynta taageeridda jaamacadda laga baran jiray ee u horeeyay cabdi baaro TTC بعملنا تيجي تريك ستكي عمود بعد حتى الآن قالوا وضعية ولا يعرف سنة أي تعليم متعلمين كل هذا لبيه كل حركة لبيه كل آداب لبيه لك أتابو يعرف waxaa la bilaabay u diyaargarowga furitaanka rasmiga ah ee jaamacadda Camuud taasi oo ahayd mid si dhab ah uga turjumaysa sida bulshada Boorama iyo guud ahaanba Somaliland ay uga go'an tahay horumarinta waxbarashada ka hor furitaankii rasmiga ah dadaalo xoogan ayaa la galay si jaamacaddu u noqoto xarun waxbarasho oo tayo leh oo buuxisa baahiyaha bulshada si loo dardargeliyo hawshan muhiimka ah waxaa codsi gaar ah loola tagay allaha u naxariistay xaaji xasan xaddi qayaad wakiilaha warshada nijaarka iyo shirkadda dhismaha ee Boorama Construction Company codsi kalena waxaa loola tagay allaha u naxariistay cabdi cawaale cabdi riijan wakiilaha dukaanka qalabka dhismaha ee magaalada Boorama labadan ganacsade waxay si kal iyo laab ah u aqbaleen codsiga waxayna ballan qaadeen 70 kursi iyo 35 miis oo loogu talagalay xafladda furitaanka mas'uuliyadda bixinta qalabkaas waxaa si rasmi ah u ballan qaaday Professor Salebaan Axmed Guuleed iyo Cabdiraxmaan Xaaji Daahir Ciidiide gudoomiye ku-xigeenkii jaamacadda Camuud labadan mas'uul waxay door hogaamineed ka qaateen asaaska jaamacadda waxayna dadaal u galeen sidii loo mideyn lahaa taageerada bulshada loona hirgelin lahaa adeegii waxbarasho ee ugu horeeyay talaabadan wadajirka ah waxay ahayd astaan muuqata oo muujinaysa sida jaamacadda Camuud loogu dhisay gacanta bulshada gobolka Awdal ka hor xafladda furitaanka rasmiga ah ee jaamacadda Camuud oo uu ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenkii Jamhuuriyadda Somaliland wadana Daahir Rayaale Kaahin waxaa kale oo la sameeyay diyaargarow ballaaran iyo qorshe heer sare ah diyaargarowgii ugu dambeeyay ee xafladda taariikhiga ah ee la qabtay 4tii bishii November 1998 barnaamijka taariikhiga ah ee hayaan socdaalkii jaamacadda Camuud ka hor xafladda furitaanka rasmiga ah waxaa si xoogan loo galay diyaargarow dhammaystiran diyaargarowgii ka turjumi jiray sida bulshada gobolka Awdal iyo guud ahaan Somaliland uga goonayd inay dhistaan jaamacaddooda waxa uu si rasmi ah gudoomiyaha jaamacaddu Professor Salebaan Axmed Guuleed u magacaabay guddigii farsamada iyo taakulaynta
guddi lafdhabar u ah abaabulka iyo fulinta howlaha farsamo martigelinta iyo hagidda munaasabadda furitaanka jaamacadda. guddigani waxa uu ka koobnaa shakhsiyaad muhiim ah rag si gaar ah uga soo shaqeeyey aasaaska jaamacadda. cabdiraxmaan xaaji daahir cilmi caydiide gudoomiyaha guddiga, cabdiraxmaan maxamuud muuse quraaba gudoomiye ku-xigeen, cabdiraxmaan cabdilaahi jimcaale xubin, maxamed sheekh cabdilaahi horri xubin, xasan cumar halas xubin, siciid axmed walhad xubin, faarax cabdilaahi fariid xubin, abubakar sheekh cabdi xubin, cabdi cabdilaahi siciid xubin, axmed madarsi arag xubin, maxamed xasan mataan xubin, yuusuf aadan abtidoon duse xubin. guddigani wuxuu fuliyey hawl kasta oo farsamo laga bilaabo abaabulka marti ilaa la dardargelinayo diyaargarowga goobta. si wanaagsan ayaa goobtaasi loogu diyaariyey kuraas, miisas, teendhooyin, calamo iyo qalab casri ah. waa xilligii la sugayey xafladdii rasmiga ahayd ee furitaanka jaamacadda Camuud. waxaa lagu qabtay gudaha jaamacadda taariikhdu markay ahayd 4 bishii Nofembar 1998. la saxo qaybta saddexaad ee xafladda furitaanka jaamacadda Camuud oo qabsoontay 4 Noofembar sannadii 1998. qaybtaas waxaynu ku gudageli doonaa barnaamijka hayaan, barnaamij xambaarsan 27 dhacdo iyo 27 horumar oo waaweyn oo jaamacaddu ku tallaabsatay intii ay jirtay. waa socdaal taariikhi ah oo muujinaya heerarka kala duwan ee horumarka jaamacaddu gaadhay.